bulshada barakacayaasha ku dhaqan kaamka fadfadhiisay ee duleedka waqooyi ee magaalada Burco ayaa cabasho ka muujiyay maamulka gobolka Togdheer iyo ka degmada Burco waxayna bulshadani ku eedeeyeen inay haba yaraatee aanay ka jawaabin codsiyadii ay soo gudbiyeen maamulka gobolka Togdheer iyo ka degmada Burco sidoo kale bulshada ayaa noo sheegay in tacaadiyo kala kulmeen shakhsiyaad gaar oo ku magacaaban wakiilada kaamkan waana kuwan iyo ka hadlaya arrimahaasi barakacayaasha ah ee halka degan ee arkaysaan hoygoodu sida uu yahay dadka naftiisu sida ay tahay 12 bilood ayuu meesha deganaa 12 bilood wax hor yimi oo maxay ahaaytay dawlad ama hay'ado ama maxay ahaaytay samafalayaal ma ay jirin barasaabkii gobolka iminka laga bedelay waxa uu yiri cagaf baan idin marinaya waanu mariyay si dadban buu mariyay waxaanu leenahay kuwii gobolka joogay dadkii barakacayaasha ahaa waxay qolqol u kala saareen reer bay u kala saareen qaxoonti wali loo sameeyo hayro iyo reer hebel maanta ka hortay umaanaan arag hebel iyo qolqol u sameeyeen waxaanu leenahay marka hore kuwa caynkaas ahna laga qabto haddii madaxi jirto oo dawladda jirto oo haddii lahay cadaalad jirto waxaanu leenahay kuwa caynkaas ahna laga qabto waxa raaca waxa la reer walba liis soo sameeyay markii la qoleeyay qoladii markii la qoleeyay reer walba liis soo sameeyay waxa la idin ku dhaarinaya liiska aasidataan ee qoladaaba la idin ku dhaarinay waxaanu leenahay ummadda caynka nimanka caynkaas mas'uuliyiinta ummadda u galaysa waxaanu leenahay dawladda ha ka qabato halkan keenay waxa weeye wax dan la yiraahdo dadkaasi dawlad dagaal ay soo galaan oo u soo diriraan mooyaane wax kale oo naafac oo dawlad ka soo gaaray ma jiraan laakiin waxa weeye ragii lafihiisu ay yaaleen garoonka haddadan qaaraqdiis si yaaleen codsiga yagii dhasmayga la dhigaa madaxweyne Muuse Biix Cabdi waxaan ku sheegay in dhasmayga la dhigo kii hore ee laga bedelay halka alla yaanu soo celini waxu halka taraktar baan ku marnayaa buud taraktar baan marnayaa wari taraktarkii baan ku jira kii hore raadkii uu ka tagay baan ku jira waxaanu leenahay waxaanu doonaynaa isbeddelkii madaxweyne aad ku soo bedeshay baanu doonaynaa waxna taray oo na arkay oo na eegay oo waxna taray oo waxna siiyay bukaan iyo baahi midna ma aanan arag biyo baa halkaan noogu yimaado wada noo keenaan laakiin anagu waxba ma hayno cid noo timi ma hayno cidna eegtay ma hayno bukaan baanu leenahay dad yar yar caruuraanu wadanaa oo caydhoway xoolihii ka baxeen ciroolaanu leenahay dad deedacsay oo aan adduunyo haysan baanu haynahay wax lagu wadaan rabnaa waxaan noo gogol ciid waxaan noo hooy baan rabnaa garanwaa baan noo hooye ciiduna waa noo gogol fadada yarina waa noo dhar haddee laba kuu roon yahay xaabaanu guranaa dushaanu ku qaadnaa waan soo iibsanaa galaamaanu ku soo qaadanaa galaamadaasaan wadaagnaa waxa weeye hooyo wax allaale waxa diyaal waxaan nala siiyay iyo waxaan meesha ugu nimi iyo waxaanu ma jirto garan waaga la sheegayaanu ka midna 12 bilood baanu fadhin de marka hooyo de wax allaale waxa diyaal wax nala siiyay iyo waxaanu meesha ugu nimi ma jirto hana laga dadka xun ee nagu amar ku taalaynaya ee madaxda ee dhargay ee magaalooyinka iibsanaya ee dhulkii oo dhan iibsaday waxaanu leenahay aan dadka shicibka ee nafaysan eegayn hana laga soo gaaro ninka dawladda ah ee halkan jooga ee baraf la yidhaaho ee dalladda ah ma naqaano hana laga qabto isku soo wada duwo maalmihii dambe waxay soo taray cabashooyinkan ka soo yeedhaya dadkan barakacayaasha ee ku nool kaamkan Axmed Yuusuf Cabdi Axmed Shaafi Soomaaliland News TV Burco.